بسم الله الرحمن الرحيم iyadoo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirkii amniga ee xalay qabsoomay isla markaana lagu dardargelinayo amniga guud ee caasimadda Muqdisho si loo ilaaliyo badqabka nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed ayaa wuxuu maamulka gobolka Banaadir faraya dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan iyo mootooyinka labalugaaleyda nooca loo yaqaan Veykonka in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubeysan nooc waliba uu yahay iyo hay'ad kasta uu ka tirsan yahay mootadii ama gaarigii BL ee u hogaansami weyso amarkaani waxa la tiigsan doonaa sharciga gawaarida ay wataan mas'uuliyiinta nooc waliba uu yahay waxa mar kale lagu adkeenayaa inay u hogaansamaan awaamirtii hore ugu soo baxay shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in baraha kontaroolada ama jagboontiyada marka ay marayaan la hubiyo gaariga cidda saaran cidda wadata iyo nooca uu yahay intaba waxa marnaba la aqbali karin in gaari uu hubin la'aan iska gudbo baraha kontaroolada ha ahaado mid shacab ama ha ahaado mid mas'uul sidoo kale ha ahaado mid ciidan saaran yahay ama ha ahaado mid aanan ciidan saarnayn intaba dhammaan waa in loo wada hogaansamaa hubinta gawaarida iyo askarta saaran intaba ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan gaar ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa laga codsanayaa in ay si dhow ula shaqeeyaan hay'adaha ammaanka qaybahooda kala gedisan iskaashigu iyo wax wada qabsigu waa mid ka keenta guul waliba oo la gaara sidaa darteed si loogu hortago dhagarta khawaarijtu waa in aan dhamaanteenba ka wada shaqeynaa amniga ma sanadin